السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaad iga daawanaysaan waa channelkeena Waafi Cabdi. Waqti dheer waxaan soo gelin. Waxaan jeclaystay inaan idiin soo duubo fiidiyoo cusub. Waxaa jira dad badan oo iga soo codsaday inaan shaqadayda details fara badan ka soo sameeyo, sida lacagta la qaadanayo, shaqadu siday tahay, qaabka lagu helayo, waxyaabo badan bay soo weydiiyeen. waxaan jeclaystay markaas si aan uga jahil saaro inaan fiidiyoo cusub sameeyo oo aan uga faa'iideysto fursad ah anigoo safar soo baxay oo ka soo baxay magaaladan deganaa u soo guuray meel kale oo aan ka fog ilaa 7 saacadood u jirta. Company-ga na soo diray markaa waxaan lagu yiri xaggaas u shaqo taga oo joogi doono muddo ilaa bila haddii ilaahay nafta nagu simo. fiidiyoogan markaa maanta halkan aan ka bilaabaynaa. waxaan ka hadli doonaa marka hore waa maxay shaqadaydu waxa weeye waa delivery driver ama qof alaab geeye ah, inaan alaabaha u geeyo meelaha laga rabo, hadday tahay guri, hadday tahay business, hadday tahay school, hadday wax walba oo commercial business ku saabsan ama ku saabsan individual dad caadi ah loogu geynayo. marka shaqadaydu waa sidaa. marka meel qura kama shaqeeyo, waxaan u shaqeeyaa hal company waan u shaqeeyaa, laakiin waxaan u shaqeeyaa magaalooyin kala duwan. ingiriiska oo kale marka tusaale ahaan oo kale cidhif baan ka shaqeeyaa. waxaa laga yaabaa wiigii hore inaan meel joogay, wiigan aan meel joogo. sida tusaale ahaan oo kale caadiyan, laakiin main shaqadaydu waxa weeye magaalada Bristol ee waddankan UK. waxaa kaloo jira tusaale ahaan oo kale wiigan gudihiisa, imika maanta waxaan joogaa Scotland oo Glasgow ama Edinburgh agteeda. jimcihii oo kale maanta waa Isniin, aan fiidiyoogan duubaya 24 bisha 11. jimcihii oo kale waxaan kasoo shaqeeyay Southampton oo ah cidhifka kale ee waddankan UK, meel 2 saacadood iyo bar meelaha u jirta magaalada Bristol. maanta waxaan joogaa hodheel ay company-gu markaana keeneen oo aan ku sugnaan doono muddada nimka soo socota. marka in yaroo review aan hodheel ku sameynaynaa, kadibna waxaan jeclaa markaa inaan fiidiyooga soo duubo min bilow, maadaama waddadu ay yara dheerayd oo ahayd safar 7 saacadood qaadanaya. markaasaan soo socdayna waxay ahayd magaalada Birmingham baan imi oo waddadu khasab ay soo marinayso. Birmingham oo ku noolaan jiray, soo family-kayga qaar badan baa halkaa degan. marka waxaan sameeyay Birmingham baan soo joogay tan Bristol ka imi Birmingham imi. waxaan joogay 3 hours meelaha oo ka soo baxay, haddana waxaan imi aagan Scotland oo waliba Edinburgh agteeda. soo hotelkan meel iska cidlaab badan ku yaala. meeshan Scotland meel iska yar qurux badan, laakiin hadda xilligii winterka baa lagu jiraa oo ma daawan karno waxyaabo badan oo kamaradu iyo tusaysan jirin. waa meel fogi ah ama xal af Soomaali ma waxa weeye waa dhul iska madow badan. 4 marka la gaaray qorraxdu dhacaysa ama 3 barka ilaa 4 ilaa 5 inta u dhaxaysa dhacaysa oo madow noqonaysa. marka waxa kale oo jira dhadada ama ceeriyaan baa jirta. labadaas ayaa meesha iyaguna ku kulmay. marka waxaanu arki doonaa qaabkeen u sameynayno fiidiyooga iyo waxyaabaha meelaha aynu marmarayna iyo qaabka shaqada loo qabanayo. marka aniga iyo dhowr iyo 20 qof oo kale kulli meesha nala keenay oo nalaga soo wareejiyay magaaladayda aanu ka shaqeynay. marka dhulkan oo dhul iska yar qurux badan, dhul iska habiya. marka waxaan tusi doonaa shaqadaydu waxa ay tahay, qaabkan u qabto. maxaan ku dhahdayay kulli dhowr baarti baan usoo kala dayn doonaa. marka daawasho wacan hodheelkan deganayna kulli waa halkan anigu halkaas ka fadhiyay. waxaan ku dhahdayay qolka kaliya iska joogay, sariirtan baa seexday, tan kale uma baahnayn. marka maanta qorraxda yara jirta, kulli shaqaale badan baan lahay, faanan badan baa meesha yaala. kulli badidooda waxa weeye faanka halkaa yaala koonaha okaygii. marka waxa weeye maanta qorrax fiican baa jirta, Soomaaliya qorrax baa jirta, hataa meeshan ma furin ba. marka halkan waa qolkii uu soo dhaweynaya shaah samaysaa lagu leeyahay. waxaan ku raad TV-gii isna halkan ku yaala. halkan waa kaawiyadii عشي تيبل كي أمامي سكيل ساري
halkanna waa ninkii kamarada hayay oo meeshan taagan iya halkanna halkan fadhiyay suuligu waa sida شاوركي وقال سكيرة في عن وحبا أكل مسؤولية عادي قال كلي أقاوحي هكا كقريب وحلم يابا صوم ما نوين بوحل صو شاورك مركو سي هاي شاورك توسو قلي كرتا سولي لا لا الباب بهل الباب كدقا هالكلمة ممكن مركا تكبع حيث أوكي سولي هذا القلي حلو يا سنة لكن هل الباب يسوي بقى صوتي تصميم marka halkan fiidiyoga inuu ka bilaabmaya waxaan sameyn doonaa inaan soo tuso shaqada markaan bilaabayo kulli bahal waxaan u baahanaa inaan baajiyo xirano shaqada waa shaqeeyay fiidiyo ma duubi kareen xalay toole sababtaas aan markaa fiidiyo u duubin maadaama maalinka ugu horeeyay shaqada ahayd like waxaad sameynaysaa meesha la qabsi waad ku sameynaysaa wadooyinkeedii wadooyinkeedu iska caadi laakiin dhulkii kale ka duwan baad xilliyada qaar tagaysaa xilliyada qaar buuraha tagaysaa qowluhu jira waxaan kaloo iska ilaalinayay waxaan la yidhaahdo skatinka qaar badan oo dadka nala shaqeeya ka mid a shalay hore waxay la kulmeen inay gawaadhida qaar ka siibtaan oo ka siibixdaan qaarna waxaa ku dhacday damage bay gaadhiyaashooda soo gaadhsiiyeen marka dhulkii ay marayeen baa wuxuu ku sababay in tusaale ahaan oo kale gaadhigu uu silkeeyo gaadhigii bay ka silkeeyey iyagoo meel soo maartay taraarax hoosaa u soconaya ayuu gaadhigu ka silkeeyey marka maanta qorax fiican way iska jirtaa daaqad dadka arki kartaan qoraxaad fiican baa jirta oo bishii 11aad dhabeedkeedii xilligan oo kale waa xilliga qabowga saxda uu joogo laakiin yaanay ku sirin qoraxdu inay ku sirtaa maaha waxa jira waxay kugu qaadanaysaa imka qoraxda saa caadiga ah waxa laga yaabaa haddaad dibadda u baxdo inay tahay 6 degree 5 degree 7 degree meelahaas inay tahay xaggana ka arki karnaaba ay tuso suuq moolkayga tusaya كوك أنا محي كوك صوص أتا زي ما كنا جوجنا بيلس هيل ميل يرهدو نورت كتالا ما أنت قرح ما ودي جوجتا لكن وتضوء هذا قرح ده حد موديلا كويل عطينيتها مركب مراعية لقى مركب فيديو حد لا يعتاد كهشو مقال كان إنات هل كإلى سوق عدي وزي ودونا حنقول هيدا وشو ركسن أنا إلاوين إن فيديوغا لايك يشير يكومنت أنت ما كبحسه وحي سؤال قبتنا نسوي ديسو حتى ديوكا كوشوكتو والليسن هيسطو يوروبيانا أما ليسن يوكا بقولكي وبقولات بيكوغو في عالتين أشقاdan iska soo gashaa maadaama in yaro xorriyada ay ku dhex jirto waxaan ka sheekayn doonaa shaqadu siday tahay sida u dhacayso waxyaabaha la sameynayo waxaas oo dhan baan ka sheekayn doonaa marka daawasho wanaagsan هذا شغل سودي القروي جاكد دي waxay go'an soo xidhay soo meesha uu taaganahay anagoo waxa wada sugeynaa safkan ku jirna adhow safka markaan ka baxno ayaan waxaan sameeynaa inaan gudaha meesha weyn gudaheedan galeynaa kadib waxaan sameeynaa oo baxayna alaabtu waan soo dhignay waxaan ku dhahay station iyo like station iyo ilaa dhowr iyo 10 fur waxaan sidnaa 101 stop waxaan sidnaa 102 location multi location waxaan haysanaa 3 xabo maapkuna sidoo uu eegay meesha waxay noo jirtaa saacadii 25 daqiiqo intageena maanta
ودنا بحنا نستيرنا وي ماشينا آير دافنو Glasgow ama Edinburgh horta Edinburgh Glasgow intii isu jiraan horta ma baadhin intii isu jiraan ma baadhin hadda horta waxaan ku yiri Edinburgh baan joogaa laakiin Edinburgh ma joogo Glasgow baan joogaa so meel Bathgate leeyahay joogay Edinburgh ma ahayn weerarta so waxaan samaynaynaa baarkinka idii sheegayna waa kan baarkinkan gaadhida gaadhiga iska dhiganaysa tan oo sii tagaysa ama haddaad gaadhi kala wadato kale saas oo kale u shaqaynaysa weerarta ka baxna marka Amazon qaybteeda Bathgate ayaynu ka qaadnay alaabta meesha ka soo baxnay عفنينا marka عفنينا saacadii 4 daqiiqo waqti yar ma hadalna hour and 20 kasii baxweeyay ana kan حاسان ملاين حق عريانتي هذه نار ما يعني بورت حق النجار يسبورت واحد بور بين فلويناتي طوق شيخ وكرا يا وضد هذا كني موت هلك كنت هلا مارد دردركم على وضد ودح مريا Yes boss. ليش نكور منيو؟ صادوا عرفتن.